waxa inuu soo dhow foodana inuu soo hayso bishii barakaysnayd ee Ramadaan allana tabaaraka wa tacaala waxa kamida nicmooyinkiisa iyo galladiisa aan la koobi karin inuu u sameeyay adoomadiisa waqtiyo ay cibaadada iyo taacada ku tartamaan asagoo adoonka laga rabo xilli walba iyo bil kasta iyo sanad walba iyo xilli walba inuu Ilaahay caabudo ayaa haddana waxa la inoo sameeyay waqtiyo gooni ah oo loogu talagalay inaan gallo tartan ziyaada ah laga faa'iideysto bishii barakaysnayd ee Ramadaan baa kamid oo inugu soo aadan waa xilli rabbi tabaaraka wa tacaala uu dhaxdiisa dhigay baraka iyo khayraad fara badan waa xilli rabbi tabaaraka wa tacaala ummadda nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salaam alayhi hiba loo siiyay hiba qaali ah oo ilaahay nabi Muhammad ummadiisa uu siiyay way sallallahu rabbi wa salaam alayhi sidaas daraadeed waqtiga qiimaha badan ee inugu soo socda ee muddada kooban ay ka laaban tahay inaad ku baraarugto way una diyaar garowdo saad uga faa'iideysan lahay shayga ugu muhiimsan ee maanta ku hor yaalana ka isaga wax naftaada ma ah ganacsigaagana ma ah xoolahaagana ma ah shayga ugu muhiimsan ee maanta miiska ku saarani waa Ramadaan seed uga faa'iideysataa wax dhowr qodob aan tilmaano oo loo baahan yahay intayna bishu soo galin inaynu meel saarno qodobka koobaad iyo tilaabada koobaad waxay tahay inaynu ogaano qiimaha iyo qadarka ay leedahay bishani leedahay jaaniskani intuu leeyahay iyo qiimaha iyo qadarka uu leeyahay inaga mudan yahay inaynu ogaano waa laga marmaan laana kolba shaygu sida uu kuugu qiimaysan yahay ayaa dadaalka aad ku bixinaysaa uu noqdaa waxay naga filan qodobka isaga nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi malakul jibriil baa u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ha fogaado oo naxariista Ilaahay ha ka durko ha laga durkiyo ruux Ramadaan u soo galay oo Ramadaan dhamaado korkiisa ku dhamaaday asagoon loo dambi dhaafin wax loogu dambi dhaafo Muuse la imaanin soonkii bisha salaadihii sadaqadii umradii quraan akhriskii cibaadaadkii dambi dhaafka laga helayay kamuusan faa'iideysanin meelahaas uu taagtaagnaayo waqtigiisa ku lumiyay jaaniskii baa dhaafay Ilaahay agtiisa muxuu ku leeyahay waa dayro way kaas Ilaahay waa dayri waa nin la fogeeyay sababtuna maxay tahay rabbi tabaaraka wa tacaala hadduu nicmo ku gudoonsiyo ku siiyo oo nicmadiisa ka shukrin weydo oo siday tahay aad u gudoomi weydo natiijadu waxa weeyaan wala in kafartum in adaabi la shadiid wa in markaas lagu ciqaabo lagu fogeeyo wa sidaas daraadeed qodobka koobaad inaynu ogaano bishan inaysan bilihii kala la mid ahayn waqtigeedana uusan ilaa noqonin sida sanadka intiisa kale way ka duwantahay wayna ka soocanta waa qodob iyo tilaabo muhiim ah qodobka labaad waxa weey ee mudan inaynu baraarujino in muddada gaaban ee bisha inooga laaban aad ku ducaysato inuu Ilaahay ku gaarsiiyo oo caafimaad kugu gaarsiiyo nabadgelyo kugu gaarsiiyo sidaas waxa ahaan jiray akhyaartii iyo salafkii inaga horeeyay ridwaanullaahi calayhi 6 bilood oo Ramadaan ka horeysa ayay Ilaahay weydiisan jireen Ilaahu Ramadaan na gaarsiiyo waa jaanis weyn inaad gaari doontana ma hubtid imisa walaalaheen ahaa oo Ramadaankii hore inala soomo inala salaado inala cibaadaystay oo jaaniskan mar labaad aan la siinin adigana waxa dhici karta inaadan gaadhin haddaad gaadhana waxa dhici karta ka ku xiga inaadan gaadhin sidaas daraadeed waa in aad ilaaha weydiisato inuu ku gaarsiiyo bishan adoo nabad qaba amaana ku siiyo qodobka saddexaad wuxuu yahay bishu markay dhalato nabigeena waxa ka sugan salawaatu rabbi wasalaam alayhi ina ducaysato iyadana oo wuxuu ku ducaysan jiray nabigeena sallallahu alayhi wasallam ducadan sheegnay Allahu akbar
allahuma ahillahu calayna biاlamni waaliimaan ilaahu bisha noogu dhali iimaan iyo ammaan nabadgelye iyo islaam tawfiiq aadna waafajiso waxaad jecesheed raalli ka tahay markaasuu wuxuu dhihi jiray bilay rabbigaa iyo rabbigay waa allah tabaaraka wa tacaala ducadaasi qiimahay leedahay waxa weeye bishan bilatay ee kugu soo aaday in khayrkeeda lagu waafajiyo ilaahay ku waafajiyo kuna tuso inaad samaysana kuu fududeeyo ayay ducadu ku saabsantahay qodobka xigaayo wuxuu yahay bishii baad soo gaadhay way noo bilatay nabad iyo nabadgelyaad ku soo gaadhay caafimaad baad haysataa ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad nicmada uga shukrido ramadaan inaad soo gaadhay adigoo nabad qaba maxaa yeelay shukriga nicmada rabbi aad garatay ee aad ka shukriday wuxuu keenayaa in siyaado lagu siiyo lain shakartum la asiidannakum waa lagu kordhin nicmadii baad garatay waa nicmo diineed waad ka mahad celiso ilaahay baad u aqoonsatay allah tabaaraka wa tacaala nicmooyin kaloo diineed buu kuugu darayaa kuugu siyaadinaya sidaasi waa qur-aanka kariimkaa siduu noo tilmaamay oo nicmo markaad ka shukrido tu kalay jiidanaysaa oo wadataa markaad taa ka shukridana kuwa kalay wadataa oo jiidanaysaa wahaakada nicamku waa iswataan macaasida iyo dunuubta iyo kufraankuna waa iswataan marka shukri ilaahay nicmadiisa ka shukriyo qalbigaaga ku weynaato qodobka xigaayo wuxuu yahay ee baraarujinta mudan bishii inoo soo socoto bishu markay dhalato iyo dhalashadeeda iyo soo dhowaynteeda waa inaan ku faraxno waa inaan bishaaraysanno waa marti aan aad u jeceshahay waalidkaa oo wakhti dheer kaa maqnaa xaaskaadiioo wakhti dheer aydaan is arkin kulanka kuugu hormaysaad kulmaysaan soo aad uma faraxsanid laa shaka fi dalik tabtahij sidaas daraaddeed waxaa ka qiimo badan waxaasoo dhan bishan oo nabad kuugu soo gashay marti qiimo badan weeye oo kuu timid waa inaad martisoor fiican martisoorto soo dhowayso kuna faraxdo imaanshaheeda nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markay bishu soo gelayso saxaabadiisu u bishaarayn jiray wuxuu dhihi jiray bishii ramadaan baa idiin timidoo soo gashay waa bil baraka iyo khayr badan khayrkeeda iyo barakadeeda la badiyey allah tabaaraka wa tacaala soonkeeda ayuu waajib idinkaga dhigay iridihii jannada ayaa la furay iridihii jaxiimo iyo naartana waa la xidhay shayaadiinta kuwoodii khayrka darnaa ee madaxa adkaa ee sharka ku mudxay ayagana waa la xidhxidhay waa la katiinadeey habeen baa ku jira bishaas ka khayr badan 1,000 bilood ruuxii khayrka habeenkaa laga qadiyana isaga ayaa xaqiiqo wuxuu yahay ruuxa qaday oo wanaag oo dhan ka qaday nabigeennu waa u bishaarayn jiray marka saxaabada war wax weyn baa yimid war ka gacan fadhiga war baraaruga marka inaad bishaaraysato ood ku farxdo qodobka xigaayo wuxuu yahay loo baahaya inaan ku baraarugno bishan waa inaad qorshayso oo aad nadaamsato dejisato qaabkaad uga faa'iidaysan lahay bini aadamku kama soo hadho takhtiidka iyo qorshaha iyo nadaaminta kama soo hadho habeenada iyo maalinta bishu ka kooban tahay saad uga faa'iidaysan lahayd qorshaheeda deji kadibna yuusan jaanisku si fudud kugu dhaafin waxay kugu kaalmaynaysaa in aad sidaad rabtay wax u hesho bitawfiiq illaahi tabaaraka wa tacaala miaal maalan haddaan tusaale idin siiyo waxaad rabtaa inaad bisha ramadaan aad qur'aanka dhammayso 5 goor waa go'aan soo maaha go'aankaasi waa inaad u dejiso wakhtigiisii maalintii imise goor baad rabtaa inaad fadhiisatood qur-aanka akhrido iyo habeenkii muddo walbana intee juz baad rabtaa inaad akhrido qorshe degan oo isku habaysan oo nidaamkii go'aankaad dejisay waafaqsan ayaa markaa kuu soo baxaya laakiin si fawdo oo hamajiya haddaad bisha isaga gasho barnaamij kale oon qorshahaagaba ku jirin baa ku kaxaysan doonta kadibna bishii waaba dhammaatayba qodobka xigaayo wuxuu yahay go'aan
qalbigaaga ah iyo doonitaan dhab ah qalbigaaga ha laga arko allah tus tabaaraka wa tacaala qalbigaagana ha ka arko inay go'aan ka tahay inaad bisha faa'iideysan rabto daaca inaad rabto aakhira inaad rabto inaad ridihiisa raadinayso go'aanka qalbigaaga ha lagu arko maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala adoomada wuxuu wax ku siiyaa kulba qadarka go'aankooda iyo niyadooda xadiidkii nabiguna waa kii ahaa innamal a'maalu binniyat niyadaada iyo qasadkaaga buu alla fiirinaya xadiidkii waa kii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum allah meeshuu kaa fiirinayo waa qalbiga maxaa qalbigaaga ku jira haddaad rabto inaad waqtiga kaga baxdo laalaab kaga baxdo oo aad wareegaysato ama adduunyadaadaba u badato qalbigaaga hadduu sidaa ku jiro wixii qalbigaaga ku jiray baad ilaahay ka sugi tabaaraka wa tacaala biidni illaahi tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed go'aan oon shakiya laalaab ku jirin oo saadiqa ilaahay ula imo faidaa cazama almru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu man sadaqa allaha sadaqahu tabaaraka wa tacaala ruuxii ilaahay run kula dhaqma ilahay run buu kula dhaqma go'aan dhawa marka la imo qodobka xigaay wuxuu yahay bishii baa soo socota intaynan bishu gelin waxaa la rabaa inaan ku dadaallo sidii aynu u baran lahayn axkaamta bisha ku saabsan u fahmi lahayn see bisha looga faa'iidaystaa soonka iyo axkaamtiisa salaada taraawiixda iyo axkaamteeda sadaqa haddaad baxsanaysa iyo axkaamteeda haddaad cumraysanaysa iyo axkaamteeda qur-aanka akhrintiisa iyo aadaabtiisa waa inaad barato ood haddaba ku dadaasho qodobka ugu dambeeya ee mudan inaan tilmaanno isagana waxa weeye bisha soo gelitaankeeda ka hor markay soo gasho dhammaadkeeda waxaad ku dadaashaa inaad toobad keento ilaahay u soo laabo wixii dembi aad geli jirteed caadaysatay joojiyo ka go wixii horay kaaga dhacay ka qoomamood oo qalbigaagu ha ka gubto go'aanso inaadan dib dambe ugu noqonaynin ilaahay dartiina u sameeya markaad saa u toobad keento toobad rasmiya aad keento qalbigaaga wixii daxal fuushay mugdigii fuulay wasakhdii fuushay kulli waa la daahirinayaa qalbigii waa dhalaalayaa waa xoogaysanayaa socdaalka uu xagga rabbi ugu jiro ayuu wuxuu u helayaa awood u helayaa daacadii buu ku sabrayaa qur-aanka akhriskiisu ma dhibayo salaada intii la taagnaadaba waa taagnaanaya waa sabrayaa soonka iyo dhibkiisa waa ku sabrayaa laanna waa qalbi xoog badan oo iftiimaya waay iimaan xoog badan baa ku jira saas daraaddeed baa nabigeennu wuxu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh addoonka markuu dunuubta galo qalbigaa wasakhoobo daxal fuusha markuu soo laabto ka soo laabtana qalbigiisa waa la soofeeyaa waa la sifeeyaa waa la daahiriyaa soo ma aragti marka qalbiga daahiri saan soo sheegnayba meesha ilaahay kaala mucaamalonaya waa qalbiga haddaad aragto adoo caajisan cibaadadii kugu adag tahay jiitamayo cag jiidaaya rafaadsanoo cibaadaysan la aafadu xaggee ka socotaa qalbigaagay ka socotaa kan khayrka u hormaray ee khayrkii ka horeeyana arrintu waxay ka socotaa qalbigiisay ka socotaa bacda tawfiiq illahi tabaaraka wa tacaala alaa wa ina fi ljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kulluh waida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb marka qalbiga hagaaji nadiifi cuqdada ka saar cadhada ka saar xumaanta ka saar shahawaadka jacaylkooda ka saar shubahaadka ka saar qalbiga nadiifi wixii galayna ka toobadkeenoo daahiri si aad bishan si qiimo badan uga faa'iidaysato daacaadkaa rabbiye kala gedisanna aad qaybtaada uga qaadato khitaamka waxa weeyaan iyo gabagabadu waxaad isku daydaa acmaasha bishan taallaayi way fara badan tahay mid walba qayb ku darso mid walba qayb ku darso soonkii waad soomanta salaadiina waad salaadaysaa sadaqada wuxuun ku darso haddaad cumraysan karta gal qur-aanka akhriskiisa ka qayb qaado salaaddii habeenkii ka qayb qaado
khayroon afurinta dadka sooman ka qayb qaado meel kaliya ha isku koobine meel walba inay lagu kugu jiri karto isku day waxa ila nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi a'maal fara badan oo kala duwan markuu sheegay ruux hal maalina inta isla sameeyay janna loo ballan qaaday buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka majaal walba khayrkiisa iyo wanaaga yaala inta ugu badaneed ka qaadan karta ka qaado si ilaahay ku saamaxo tabaaraka wa taala qortaada naar uga xoreeyo jannadiisana kuugu waajibiyo iyo radihiisa tabaaraka wa taala